inaad adiga raali geliso asaga haddii aad rabto si sarbee baa loo weydiin karaa maxaad dhihi kartaa inaad deeratu weydiiso oo dhahdo kalarka aad jeceshahay waa noocee lama dhaho waxaa la dhahaa xaaji waxaan u baahanahay inaad hadiyad ii soo gado hadiyadaasna noocay tahay anaa codsanaayo hadiyad jiifaan u baahanahay dharka lagu seexdaa inaad ii soo gado suuqa u dir bal asaga okay kalarka uu kuu keeno waxay ka turjumaysaa dooqiisa inuu yahay waxaad ku ogaanaysaa halkaas kalarkaas inuu jecel yahay waad wadaysaa xaajiga haddii ay suurtagal tahay oo uu jecel yahay inaad isku raacdaan goobo casho waad isku raacaysaan maanta xaaji dalabka waa adigaad leedahay waxaad ka ogaanaysaa halkaas cuntada uu jecel yahay guriga fadlan waxaad ugu dadaalaysaa cuntadu markaas doortay xataa ta koobaadu weydiiyaa la dhahaa waxay dhahaan kitaabtu ta koobaadu marka u horeyso dalbado waxaa laga yaabaa in ma taalo la dhaho okay ta labaad waa raqbadiisa labaad fiiri 3 optionaa laga yaabaa inuu halkaas aad ka istafiido ta koobaadu weydiiyo haddii la dhaho ma taalo adiga ilaan waxaad wadataa ma ogtahay waxyaaba aad ku ogaanaysi tii koobaad waa inaad ogaataa ta labaad markii uu weydiiyo ta labaad waa tii dooqiisa labaad waa inaad qirsanaataa ubaxyada markii aad weydiinayso aroosoo kaleeto ama gurigoo kaleeto aad rabtaa inaad wax u soo gado hadiyadaabad rabtaa inaad u keento inaad weydiisana ma rabtid ubaxa uu jecel yahay oo kaliya aad rabtaa inaad weydiiso ubaxyada halkan yaallo kalar ahaan ee gurigeena yaallo ani xaaji kalarkaana ugu jecla adiga kalar ma jeceshahay kalarkeed jeceshahay qofka si aad wax u weydiiso ma waayaysid waxaa lagu leeyahay markaad isku qurxinaysid waa inaad marsataa barafuunada uu jecel yahay haddii aad asaga isku soo qurxisay oo aad sariirta dartii u timid sariirtiina aad qurxisay barafuun uu necab yahayna uu kaa soo uraayo qofkaasi kasbashadiisa maada ku xeel dheeraan barafuunka uu jecel yahay asaga waa inaad marsataa marka horeeto waa inaad weydiisaa haddii aadan weydiininna waa inaad adiga aad isku daydaa inaad si aad ku ogaataba si uun ku ogaato barafuunada uu jecel yahay iyo catarada uu jecel yahay adiga haddii aad necab tahay xataa asaga dartiisa inaad hanataa rabaa qofkan ma ogtahay aad hanataad ku talagasho asaga dartiis u marso adi haba ku dhibaan hadday rabtaane sariir okay sirtiisa dhowr waxaa loo baahan yahay qodobka 8aad inuu noqdo ay gabadhaani ilaaliso sirta zawjkeeda ama sirta qofkeeda nolosha inay la wadaagto ay u diyaarinayso maxaa soo binaa hadda oo la arkaa laba gabadh iyo wiilkii hadday barnaamij yar oo khilaaf uu ku dhex maro gurigoodii hooyadeeda uu la orday saaxiibteeda uu la orday gabadha dariska subaxaaba waa u sheegay habeenkii waxay kii xalay waxaan isniir moogta saasi sheekadaas ii keenay moogta xalay telefoon ku hadlaayay saasaan idhi kan war qofkan maxaa u joojoobaysaa adiga maanta hadduu ku dhaw xageed u socotaa ugu yaraan waa ka xanaaqaynaa sax okay nafsadaada marka adiga ma jeclid in lagu joojoobo asaga maxaad u joojoobee sirtiisii adiga asaga idin dhex maray laba carab iyo ilka isugu dhaweey isqamaan inaa isqabanaysaan waa sax laakiin ha la wadaagin qof kale walaasha ha la wadaagin asaga marjic ku xakuu noqdo asaga kula soo noqo caawaad ka xanaaqday Soomahan bari waad ka joogto shaqadiisii iska aaday kala xanaaqsanaadaba caawa habeen damba markuu imaado adoo diyaarsan oo faraxsan oo adi xanaaqay ka bacay iridu istaag u sheeg inaad saacado sugayso oo rabtay inaad ka baabisay xanaaqi uu ku tagay saaka hala wadaagin sirta zawjkaaga qof kaleeto qofku dooniba ha ahaado qof aad ku kalsoon tahay saaxiibta hadduu dooni ha ahaado okay qodobka 9aad noqo gabadhan cabasho badnayn waa jiranahay halkan ay ka baxday isbitaal hebel aan u baahanahay sidaan waaye saa iima samaysid waxaa ma laga yaabana inaad samaysay weligay allahay jacaylkaa ma arkin weligay kelimo jacayla imaada dhihin weligay xitaa kelimo xun kumuusa dhihin mar kasta laakiin waxaad dabci u leedahay gabadh cabasho badan inaad noqoto mar kasta uu wax ku siiyo weligay $1 maaday siin inaad leedahay abtigay waagi maadaa wax siiyey maadaa kan yiri hooyaday maadaa saas yiri daa'iman gabadh sheegasho badanaad tahay waxaa lagaaga baahan yahay inaadan noqonin gabadh sifooyinkaas ku sifowdo hadda ka hor waxaa la dhahay boqorada ka mid ah yaa wuxuu qabay gabar aad u taajir u ahaa marka boqorka meeshaan sheegashadaasaan aan qisayar ku soo qaatay gabadha marka waxaa la dhahay waxay aragtay qowmkii magaalada ay deganayd qoomkii ay isku soo baxeen iyagoo si ay u dheelaan maalmo ay dheelaanay lahaayeen
ay tacliim ugu sameeyaan ciidahooda way soo baxeen dhiiqo iyo waxyaabahaas ay ku dheelaayeen marka oo waxyaabo ka samaysan guri iyo waxyaabahaas way jeclaysatay marka inay la dheesho way soo baxday waxay ku tiri waxaan rabaa inaan la dheelo ninkan waa nin boqor oo taajir magaalada ninka ugu taajirsana waxay ku dheelaayaan dadkiina dhiiqo wax ka samaysan wuu yimid way u sheegtay waxay ku tiri xabiibi waxaan rabaa inaan la dheelo qoomkaas maanta ciidooda ay tahay inaan la soo ciidaan rabaa anigana oon la soo dheelo okay waayuu yiri kaas macay way timid way la fadhiisatay dabcan dhulkaan oo kaleeto weyn baa soo fadhiya qof walba waxa yar uu ku dheelo labada ilmaheen ku dheelaan camal uu ku dheelaya oo ay tacdiimkooda ayaga ku suubinayaan uu soo kor istaagay uu ka fikiray marka wuxuu yiri ninka adduunka ugu lacagta badan yaa tahay gabadh adoo boqora gabadhaadi dhulkay fadhidaa dhiiqana farahay kula jirtaa saad markuu wuxuu yiri aad uga bedeshaa marxaladan wuu qaaday intii dhiiqa meesha taale waxyaabihii ka suubisnaa wuu qaaday wuxuu geeyay maymanka dahabka mintiyo dahab uu soo sameeyay hadduu dhari ahaa hadduu bakeeri ahaa hadduu galaas ahaa hadduu koob ahaa haddii wax walba uu ahaa intii oo kaleeto uu soo sameeyay wuu u keenay ciidoodii kaleeto markii sidii ay dhaheen ay gabadhii tiri waan la dheelaa isagoo boorsadii ka soo waduu geeyay wuxuu yiri hoo ku dheel inta kale maxay ku dheelayaan dhiiqaayadiina maxay ku dheelaysaa dahabay ku dheelaysaa soo ma ahan wuu qaaday way ku dheeshay qariibay noqotay gabadhii way qaaday maalmihii kadib ay isku dhaceen marka way ishtakooto waxay tiri waligay jacayl maada ii muujinin waligay kan maada ii yeelin waligay saas maada ii dhihin aasuu yidhi xataa yowma tiin maalinkii aad dhiiqada ku dheelaysay xataa jacaylkuma muujinin qisadii maxaa la yidhi marka xataa yowma tiin aa loo bixiyey marka waxaa loo baahan yahay in aanan ahaanin mar kasta gabar ilowda oo cabasho badan oo waxa zawjkeeda uu u sameeyay mar kasta qalbigeeda ka baxa oo ay ka qaalib noqoto caradeeda iyo waxyaabaha ay iyada ee ninkan ka sheeganayso ninkaas wax kale oo u dhimanaan ma lahan li'anna dhiiqa intuu u diida gacmeedu daab uga sameeyay maalinkii dambeetana maxay ugu jawaabtay waligay waxa wanaag maada ii sameyn waa khalad gabadhaas oo kale inaan noqono waxaa loo baahan yahay inaad ahaato gabar wadciga hadda joogo ku maxay ahayd la falgasha oo ogaato zawjkeeda waxyaabaha uu ku fiican yahay waxyaabaha ku xun yahay waa caroonayna bilaadan aan haysa laakiin inaan isu xakamayno oo shaydaanku naga tambadinin inaan ahaano okay karaame ehelkiisa qodobka 10aad oo ah qodobka ugu dambeeya 10kii qodob ee aan ku hananaynay ragga karaame ehelkiisa see ku karaameyn karnaa qofkan inaa dhahdo maanta waxa u baahanahay hooyo aabba inay ii imaadaan oo ay maxay ahaydey qado aan u karino jimcada soo socoto asaga adoon ka imaanin wax qarashana xabiibi adiga ha ii dhiibin aniga ha dabaraay waa wax wanaago soo ma ahan li'anna adiga hooyada markay ku imaanayso maalinka hooyada ku soo socoto gurigaaga waa laga dareemayaa asaga hooyadii waa hooyadaayo kale qof aad jeceshahay oo raqbaadkaaga iyo baahida aad qabtay ku dhameystiray eeba dhashay maxaa u ximeynaa oo cayrine oo hooyada uga jeclaaneen hooyada way ku dhashay ayadana xaq kugu leedahay asagana hooyadana xaq kugu leedahay laana zawjkaaga hooyadiis waa hooyada soo ma ahan inaad karaamayso ehelkiisa oo dhan magacaaga haddii aad noogu bilowdo waxaad ka mid ahayd macallimiintii maanta bandhigan wax ka bixinayay ee loogu magac daray hanashada ragga marka magacaaga ugu horreyn haddii aad noogu bilowdo bismillaah magacaygu waa xabs cabdiqaadir yuusuf waxaan ka mid ahay macallimiinta oo bandhiga maanta ka qayb qaadanayay waa dhowahay bandhigan waxyaabaha maxaa la dhahay looga hadlay haddii aad si kooban daawadayaasha aad faahfaahin uga siiso bandhiga maanta wuxuu ku saabsanaa gabadha sida ay yani ku hanan karto ninkeeda ama gabdhaha shukaansiga markay tahay ama markay ay wada joogaan isqabaanba marka cumuum ahaan intaas uu ka hadlayay waa barnaamij yani sidiisa muhiim u ahaa in marar badan laga hadlanayo fiican tahay لأن dhalinyaradeena Soomaaliyeed waxa ay ku badanaysaa ayagoo yar yar inta iska guursadaan oo garanaynin guurka micnihiisa hadana uu durba guriyihii ay burburaan marka ihtimaam la siinayo lagu weynaynayo aan uga hadlaynay barnaamij marka waxaad ka soo qayb galay halkan dumar aad fara badan sidee u arkeen dumarka mowduucan aad doorateen ee hanashada ragga aad bay ugu faraxsanaayeen waliba hana loo soo celceliyay badidooda ee lahaayeen
موضوعا hanashada ragga ay ugu magac darteen oo gabdho badan taasoo keentay oo jeedinaysan sida ay raggooda ku hanan karaan موضوعا موضوعي ka horeeyay miyaa jira way jireen dhowr mar mowduuc kale oo la qabtay ayaa jiray waxaa kamid ahaa ahmiyadda ay hooyada leedahay qiimaha qoyska mowduuc kale oo badan oo ay qabteen ay jireen ururka marka mowduucyada markii loo magacaabayo magac loo yeelayo sida hadda hanashada rag oo kale oo ah mowduuc aad u xasaasiya ma gabdhaha Soomaaliyeed ay ka timaada oo waa fikrad gabdhaha ka imaado adikana u qaadataan oo aad u diyaarisaan mise mowduucyadaas adika ayaa xulatiin inuu maya inta badan daraasad la sameeyaa wadciga markaas waxa loo arkay inuu dhaqdhaqaaqiisa uu badan yahay oo kale taad laga hadlaa hadda waxyaabaha ugu badan oo rabnay inaan ka hadalno soo wadno wuxuu yahay markii adi bulshada aan dhex galnay wareysaneen fiirino kadib aan soo bandhignaa hadda ilmaha la tuurayo jidka la dhigaa intii gabdhaha si qeyr sharci ah lagu qaado kale barnaamij oo kale hadda in laga hadlo ururka uu ololana qiimeynaya markii bulshada la dhex galo oo la ogaado waxyaabaha ay daneynayaan magac u bixinaa oo ka hadalnaa muhiimadu haweenka Soomaaliyeed uu leeyahay mowduucyadan qabatiin maxaa kamid waxa kamid ah inay ka faa'iideystaan oo yaani khibrad ay ka qaataan oo laga yaabo inay waxyaabo badan oo ay xal u waayeen ay xal uga helaan sida aan isleenahay waxyaabahaas kamid ah ugu dambeyn waxaad daawadayaasha kala socdaan barnaamijka Muraha Haweenka TV Kalsan ee haweenka ku daawanaya ee ku xiran barnaamijkana Muraha Haweenka Kalsan TV maxaad talaa u jeedin lahayd waxa u jeedin lahaa kullee haween waa udub dhaxaadka bulshada oo idil hooyada marka waxaan leeyahay hooyo kasta ha toosnaato sida ilmo toosan iyo ubad toosan iyo bulsho toosan ay